suuratul fiil makiyatun wa aayaatuhaa 5 suuraddan waxaa la yidhaha suuratul fiil baa la yidhaahdaa. acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim. waxaannu meeshaan ka bilaabaynaa suuradda suuratul fiil la yidhaahdo. waa suurad oo makiye ah suuraddaani. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intuusan soo hijroonin ka hor bay ku soo degootay. asxaabulfiil qisadiisay ka hadashaa. asxaabu fiil waxaa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sannadkii ou dhashay qolo kacbada weerar ku soo qaadeen oo gaalo ah. waxaa qoladaa xukumi jiray waxaa hoggaamiye u ahaa nin la yidhaahdo abrahatul ashram gaal la yidhaahdo. waddanka waxa weeye yeman ayuu xukumi jiray ninkaasi. ninkaa wuxuu ka masayray siday carabtu kacbada u maamuusahayaan. wuxuu dhisay kiniisad waddanka sancaa'ulyaman la yidhaah ayuu ka dhisay sancaa. markaas ayuu yidhi dadka xajinaya oo kacbada aadayoo dhammu inta ha soo aadeen. nin qurayshta ka mida ayaa ka xumaaday baa la yidhi. wuu soo baxay habeen madow ayuu soo galay kiniisaddii xunkaaheeduu dhisay. markaas ayuu qashin iyo saxaro iyo wax ku dharoobay derbigeedii iyo nijaaso isagoo xaqiraya. waxaa arrintii maqlay abraho. wuu ka xumaaday. waxalafa an yahdima alkacba. wuxuuna ku dhaartay inuu kacbada dhan soo dunduminayo. wuxuu diyaarsaday abraho ciidan aad u fara badan oo uu doonayo kacbada inuu ku soo weeraro. ciidankaasu wuxuu ka koobnaay sida ay taariikhdu caddaynayso iyo siiradu 60,000 oo ciidana 60,000 jundiyin. 60,000 oo ciidana iyo 13 maroodi ama 9 maroodi. maroodiyaalku oo maroodiyaal loo carbiya dagaalka oo halka xaboo ka miduhu adduunyada derbiga ugu xoogga badan hadduu qabto waa jejebinhayaa. maroodiyaalka iyo ciidankaas bay soo wateen. meel maka u dhow markay joogaan reer mako dadkii ahaay way carareen. buuraha iyo meelahaas bay ku carareen. nabiga awowgiis cabdulmudalib baa markaa ra'iis ka ahaa, odayga ugu weyn ahaa. waa ka baxeen magaaladii ayagoo ciidankaa iyo sadwadooda ka baqahaya. ciidankii abraha oo watay markii ay damceen inay kacbadii weerarka ku soo qaadaan oo meel u dhow ay marayaan ayuu maroodiyaalka maroodigii ugu horreeyey wuu fadhiistay baa la yidhi. wuu fadhiistay. haddii la kiciyo la maago xagga kacbada ha loo wada wuu fadhiisanayaa. ma socon hayo. haddii meel kale loo wadan dhinac kale loo jeediyana waa iska istaagahayaa. ayagoo yaaban oo ama kaagba haysto oo wax ay sameeyaan oo qoola ayay korkooda ka arkeen shimbiro yaryar oo heehaabaya bay arkeen. shimbirahaas oo yaryara oo madmadow. shimbirahaas oo waxaa la yidhi shimbir kastaba ay wadato 3 dhagax bay wadataa. 1 dhagax gafuurkay ku wadataa. 2 dhagaxna lugahay ku wadataa. dhagxaanta ay wadataa madaafiicda adduunka lagu dagaalamo kuwa ugu casrisan way ka xoog badan tahay. dhagaxu ma weyna. raashinka iyo misagada yararka ah ama ganlayda agteedu digirtaan rabaa ou la eg yahay. dhagax walba waxaa ku qoran qofka uu dili lahay magaciis. dhagaxu qofka ma seeraynayo. shimbir walba waxaa loogu talagalay 3 qofood inuu toogto oo halaago ayaa loogu talagalay. shimbirihii dhagxaantii bay ku bilaabeen gaaladii. dhagaxu wuxuu ku dhacayaa qofkii loogu talagalay. wuxuu ka gelayaa maskaxda. wuxuu ka baxayaa duburka. markaasuu isagoo googo'ayuu dhinac u dhacahayaa. waa baaba'ay ciidankaasu. qisadoodiina waxay noqotay cibratan lilmuctabiriin. dadka cibro qaadanaya taariikh bay u noqdeen. waa baaba'een. waxaa ka badbaaday baa la yidhi maroodigii kacbada xaggeeda inuu u kaco diiday baa ka badbaaday. abraha isagoo dhaawaca buu cararay. markuu waddankii sii tegey oo uu yidhi sidaas baa ku dhacday ciidankiina asagana wadnihii baa jeexjeexmay wuu dhintay. ciidankaas musiibaa ku dhacday. ilaahay haddii uu doono diintiisa ilaahay hadduu iraadeeyo inuu difaaco dadka mujrimiinta oo diinta qarribahaya oo muslimiinta qarribahaya oo masaajidda ilaahay qarribahaya
oo diinta dullaynaya ilaahay baa waxa weeye waa oon loo kaadinayaa dembigaa loo badinayaa maahane ilaahay baa halaajinhaya waa ilaahay halaagooda wax agtiisa ay ka yihiin ma jirdho qowmu nuux baa la halaagay waxaa lagu halaagay waxaad og tihiin waxaa la halaagay qowmu thamuud qowmu nuux biyo ayaa lagu soo daayey fircoon iyo wixii la socday baa la halaagay biyihii badda ayaa iyagana lagu furay oo markay soo galeen lagu amray baddii baa laysku soo daayey oo ku baabi'een qoomkii oo waxaa la halaagay la odhan jiray qowmu thamuud malag baa ku qayliyey qowmu luud baa la halaagay ayaga dhan dhulkiibaa inta kor baasha jibriil hoos ka geliyey ay markay hawada u dhow yihiin baa la soo rogay hal mar qolo kasta oo diinta islaamka hor timaada oo ilaahay ambiyadiisa ka hor timaada oo masaajidda ilaahay inay qarribaan go'aansadaan oo jaamaca ilaahay hoos u dhigaan ilaahay waxuu doono ayuu ku halaajiyaa kuwa hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam fadeexadiisa iyo diinta islaamka iyo muslimiinta sharaftooda meel uga dhacahaya annagaa nala ku imtixaamayaa annaga ayaan dad fiican ahayn annaga ayaan ilaahay jidkiisa ku toosnayn ma ahane ilaahay waxa weeye ayagu waa ka amaalmarinayaa laakiin ummadihii hore waa la dhibi jiray waa la garaaci jiray miishaar baa lagu kala goy jiray madaxa ayaa la kala dilaaci jiray ilaa ay dhahaan mataa nasrullaah alaa inna nasrallaahi qariib marka inaan sabarnaa loo baahan yahay inaan diinta ku mitidnaa loo baahan yahay qoomkii kacbada ilaahay soo weerareen oo dhaheen beydka ilaahay baan dunduminaynaa ilaahay xayawaanaadka kuwa ugu tabarta yar oo shimbiraha ayuu ku soo diray way halaagsameen way cirib go'een sannadkaas waxaa ku dhashay caamulfiil baa sannadkaa loo bixiyey sannadkii maroodiga ayaa la yidhaahdaa maxaa yeelay ciidanka kacbada soo weerareen maroodiyaal baa ka mid ahaa way cirib go'een waxaa dhashay sannadkaas dhexdiisa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasallam hadda waxa weeye 50 habeen buu ka dambeeyaa la yidhi sannadkaas isla sannadkii gudihiisuu dhashay waaqicadaas 50 habeen muddo ka dambaysa ayuu dhashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa suuraddaani nabiga calayhi salaatu wasalaam qisadii ku dhacday qoladaas wakhtigaa ayaa loo sheegay oo looga sheekeeyey sidaas baa la yidhaahdaa waana tan qisadii ka dhacday wakhtigaas dhacday oo rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam suuratulfiili makiyatun wa aayaatuhaa 5 suuraddan waxaa la yidhaah suuratulfiil fiilku waa maroodiga magaciis 5 makiyatunna weeyo waa suurad makiye ah oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qabla alhijra bay ku soo degootay aayadaheeduna waa 5 aayadood oo qura bismillaahi araxmaani araxiim alam tara ay alam taclam miyaadan ogayn miyaysan ku soo gaarin nabiyullaahi moxamedow ilaahay wuxuu ku sameeyey hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku dhashay waa la wada yaqaanaa waa maka almukarraba bishicbi abidaalib meel la yidhaha ayuu ku dhashay baa la yidhi sannadkou dhashayna caamulfiil baa la yidhaahdaa bishow dhashana bisha islaamka rabiicul awal khilaafbaha ku jiray ayay u badan yihiin culamaa'u taariikh nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhdan 2006 hadda cagacagaynaysa waxay maraysay markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam 571 bisha 4 oo abriil ayuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam 20keedii ayay taariikhuhu qorayaan bismillaahi araxmaani araxiim alam tara ay alam taclam miyaadan ogayn miyaysan ku soo gaarin kayfa sidii facala oo ku sameeyey rabbuka rabbigaagu nabiyullaahi moxamedow biasxaabiilfiili maroodiga kuwa u saaxiibka ahaa maroodiyaalka kuwa u saaxiibka ahaa maroodiga kuwa u saaxiibka ahay baan rabaa oo kacbada ilaahay soo weerareen ilaahay wuxuu ku sameeyey wixii ku dhacay masaa'ibtay la kulmeen miyaadan ka warqabin nabiyullaahi moxamedow calayhi salaatu wasalaam alam yajcal ilaahay miyuusan ka yeelin kaydahum hagartoodii kaydahum dhagar
iyo hagar way isla mid dhagarna waa dhihi kartiin kaydahum dhagartoodii iyo hagardaamadoodii fii tadliilin wax lumay dhexdeed miyaan rabbi ka dhigin waa lumay wax lagu khasaaray hagartoodii noqotay dhagartii ay damacsanaayeen oo ay ilaahay baydkiisa iyo muslimiinta u maleegahayeen ayagiibay ku laabatay ayagiibaa ku khasaaray ayagiibaa ku cirib go'ay ayagu waxay rabeen inay diinta cirib gooyaan laakiin ayagiibaa la cirib gooyi sidaas weeye walaalayaal diinta ilaahay baa u heelinaya subxaanahu wa tacaala wa arsala ilaahay alam yajcal ilaahay miyuusan dirin miyuusan yeelin baan rabaa kaydahum hagartoodii fii tadliilin baadi dhexdeed alam yajcal ilaahay miyuusan ka yeelin kaydahum hagartoodii fii tadliilin baadi iyo lumitaan dhexdeed wa arsala ilaahay miyuusan dirin calayhim dushooda dayran shimbiro abaabiila guuta ah ama koox u soconayo weeyaan oo waisdaba joogaan waa shimbiro isdaba socda baa la yidhi firaqan wa jamaacaad bacduhaa fii ithri bacdin waisdaba socdaan tarmiihim shimbirahaasoo tarmiihim ku gemaysa gaalada bixijaaratin dhagxaantaasoo min sijiilin dhoobo la dubay oo kulul ka samaysan weeyaan dhoobo la dubay ka samaysan tahay diinin mutaxajir dhoobo oo dhagax noqotay oo dab ah ay dhagxaantu ka samaysan yihiin fa jacalahum ilaahay wuxuu ka yeelay ka casfin bal oo kale balkaasoo ma'kuulin ee la cunay weeyaan bal inta la cunay xoola calaliyeen ee markay calaliyeenoo buda noqday ay tufeen oo kalay noqdeen ayagiioo buda ah oo burburay oo googo'ay oo nafti ka wada baxday oo mayd ah ay dhulka ku wada dhaceen saasaa looga jeedaa bismi illaahi araxmaani araxiim alam tara ay alam taclam alam yabluqkana waa la yidhaahdaa miyaadan ogayn oysan ku soo gaarin khayru khalqillaahiyow kayfa sidii facala ou ku sameeyey rabbigaagu biasxaabiilfiili maroodiga kuwa u saaxiibka ahaa alam yajcal ilaahay miyuusan ka yeelin wuuba ka yeelaye kaydahum hagardaamadoodii fii tadliilin baadi dhexdeed hagartoodii iyo dhagartii ay muslimiinta dhagrahayeen oo hagarsan hayeen oo hagardaamin hayeen baadi dhexdeed sow ma aysan noqon oo mid lagu khasaaray ma noqon oo godkay ay ummadda u qodayeen iyo diinta iyo masaajidda sow ayagu lama go'in saas weeye macnuhu wa arsala ilaahay miyuusan dirin calayhim dushooda dayran shimbirahaasoo abaabiila guuta ah ama koox u soconaaya shimbirahaasoo tarmiihim ku gemaya gaalada bixijaaratin dhagxaan ayay shimbiruhu ku gemahayaan dhagxaan bay ku tuurayaan gaalada min sijiilin dhoobo la dubay oo kulul ay ka ahaatay dhagxaan oo dhoobo dhagax camal ah oo kulul ka samaysan siday rasaastay uga dusayaan qofka fa jacalahum ilaahay wuxuu ka yeelay ka casfin bal oo kale ma'kuulin la daaqayoo bal caleen xooluhu inta daaqeen ay ka bacdi tufeen oo digaayeenoo gadaal ka sii daayeen amaba ay iska tuureenba oo kalaa laga yeelay way cirib go'een halkaas ayaa qoomkaa asxaabulfiil la yidhaahdo lagu cirib gooyey qiso cajiibahay noqotay nabigaa looga sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam suuratulhumazati makiyatun wa aayaatuhaa 9 suuraddan waxaa la yidhaha magaceeda suuratulhumazati baa la yidhaahdaa waa makiya humaska waxaa looga jeedaa waa xanta suuraddaana waxay ka hadashaa waa makiyo waxayna ka hadashaa waqad taxaddatat can aladiina yuciibuuna annaas kuwa dadka ceebeeya waya'kuluuna acraadahum dadka sharaftooda iyo marwadooda cunahaya bidacni waalintiqaasi waalisdiraac dadkiibay wax ka sheegahayaan nasabkoodiibay wax ka sheegahayaan kii dhintay wax ka sheegahayaan kii noolay bay wax ka sheegayaan shiikh iyo shariif iyo shaab midna dayn maayaan ummaddiibay ku jeesjeesahayaan
wa bisukhriyati waalistihsaa ficlu sufahaa sida waxa weeye jees-jeeska iyo waxaas oo dhan bay ku samaynhayaan xoolihii bay uruurinhayaan waxa weeye waxay cunayaan agoonta xoolahoodii waxay samaynhayaan wax kasta oo xaraam ah dadka nuucaasa oo dunuubta nuucaa sameeya oo ummaddii isku dirahaya oo ummaddii xamanhaya oo nasabka wax ka sheegahaya oo sharaftii meel uga dhacaya oo aan oqoonin sheekh oo aan shariif oqoonin oo aan shaab sharfayn oon culummo macallim daynayn oon waalid daynayn oon mid nool daynayn oo mid agoona aan daynayn oo aan miskiinka nabadgelayn suuraddaani dadka nuucaasahoo muslimiinta ilaahay ku taagay bay ka hadashaa gaar ahaan waxay ku soo degootay gaalada qaybo ka mid ah weliba nin la yidhaahdo akhnas ibnu shariiq aa la yidhaha magaciis ay ku soo degootay akhnas ibnu shariiq wuxuu ahay asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu cadow ku ahay waxbuu ka sheegi jiray waa cay jiray baa la yidhi wuu xama jiray waa ceebay jiray markay soo qaabilayaan iyo markay sii jeestaan intaba laakiin cibradu suurad walba markii lagu yidhaha dadkaasay ka hadlayda ku soo degootay macnuhu ma aha inay dadkii keligood oon mar kasta taagan tahay ma aha waxaa la yidhaahdaa alcibratu bilafdi alcumuum laa bilafdi khusuusi sabab waxaa mar walba la fiiriyaa xugunka aayaddu caam ay ku noqonayso laakiin lama fiirinayo hebel bay gaar ku tahay lama fiirinayo hebel bay gaar ku tahay lama fiirinayo caamkeedaa la fiirinhayaa waxay caam xugunkeedu ku noqonaysaa qof walba oo xanta iyo ceebaynta muslimiinta daba jooga qofkii muslimiinta ceebeeya suuraddan baa ka hadlaysa qofka muslimiinta xamanhaya suuraddan baa ka hadlaysa nasabka bini'aadamka qofka wax ka sheega suuraddan baa ka hadlaysa qofka aan qiyaamadii iyo waajibaadkii ilaahay la imaanayno qiyaamadii ka cabsanaynin cadaabta ilaahay oo adduunyada bis uruurinaya suuraddan baa ka hadlaysa cadaabta ou ilaahay agtiisa ou ka mutaysanhayo kulligood waa lagu sheegahayaa marka xantu sideedaba waa shay xaraam ah namiimadu waa xaraam xantu waa xaraam ilaahay xanta markuu ka hadlayo wuxuu yidhi ayuxibbu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuhu midkiin ma jeclaan lahay inuu cuno walaalkiis hilibkiisoo mayda haddii lagu odhan lahaay ruuxaani waa walaalka waa mayd hilibkiisa gooso cad ka mid ahe cun haddii lagu dhihi lahay maxay kula noqon laheed aad baad u kohan laheed sidaas oo kale ayay la mid tahay qofka markaad xamanayso hilibkiisii baad cunaysaa haddii aad sooman tahay ee aad xan samaydo xalaashii gabdha wuxuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayagoo sooman ee la imaanaya xanta markaasuu yidhi xalaashii ilaahay bay ka soomeen xaaraamnayna ku afureen buu yidhi soonkaagii thawaabkiisii baa burahaya sidaas oo kale xanta markuu ka hadlaayay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku xadeeyey ama ku miithaaliyey ama ku tacriifiyey dikruka akhaaka bimaa yakrah waa qofka muslimka ah oo toosan oo wanaagsan oo wax ictidaara oo aad macnaha wax uga hadasho aysan jirin jarxi iyo wa tacdiil iyo qofka asbaabo oo qiibada markaas la takhsiisay oo la soo reebay way jiraan laakiin intii midna adigoon haysanin inaad qofka wax ka sheegto waxa weeye shay oo kohonayo inaad ku tilmaanto xambuu ku tilmaama nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay maalin caaisha waxay tidhi baa la yidhi xasbuka min safiya kada wa kada gabadha safiya la yidhaahdo waa rasuulkaa qabay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaaga filan bay tidhi saa iyo saa waa gabar gaaban oo sidaa ayay tidhi baa la yidhi markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaad ku hadashay maanta kelimo haddii lagu dari lahay badaha haddii lagu daro hadalka aad tidhi xumaanta ou qabo wasaqda ou qabo foolxumada ka imanaysa badda sidaa haddii loogu dara buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wasaq bay ka dhigi laheed buu yidhi hadal xun oo aan wax macnaha loo adkaysan kara ahayn ayaad ku hadashay baa la yidhi
marka sidaasoo kaleeta weeyi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ku yidhi xanta marka aad bay u xuntaha walaalayaal muslimiinay xanta waa in laga fogaadaa waxa weeye waa in laga dheeraadaa oo ummadda looga digaa waa shay xun oo adiga waxa weeye qiyaamada markaad timaado qofkii aad xamanaysay baad u shaqaynaysaa salaadaadii thawaabkeedii baa la siin hayaa soonkaagii baa la siin hayaa qur-aankaagii baa la siin hayaa marka adugu intaan la gaarin maalin aan dirham iyo diinaar lagaa qaadanaynin waa inaad qofka walaalkaa istixlaal ka dalabtaa icafi waa inaad tidhaahdaa waa inaad nasabkiisa nabadgelidaa waa inaad sharaftiisa nabadgelidaa waa inaadan marwadiisa meel uga dhicin muslim kaamila wuxuu qofka la yidhaahdaa markuu muslimiinta nabadgeliyo markii carabkiisa laga nabad galo markii lisaankiisa laga nabad galo markii gacantiisa laga nabad galo markaasuu qofku muslim yahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadih muslim kaamila waxa weeye qofku markii carabkiisa laga nabad galo oo gacantiisa laga nabad galo muslim kaamila kaasaa la yidhaahdaa qofka muhaajirkaana waxaa la yidhaahdaa man hajara maa xarama allaah ilaahay wuxuu xarrimay qofka ka dheeraada qofkaasaa muhaajir la yidhaahdaa marka waxa weeye aannu ka fogaanno xanta iyo waxyaabaha beentaa iyo namiimada ummadda laysku diro oo laysku dulmiyo oo hadalka loo kala qaado oo fidno la dhex dhigo labada ruux oo isqaba laysku diro labada saaxiibbada laysku diro ardayga iyo mucallimkiisa laysku diro labada ganacsiga isla'a laysku diro dulmigu waa shay xun namiimadu waa shay xun dhammaantood waa xaaraam waa lagu naar galaa waa lagu cadaab mutaystaa qabrigoo mugdiya baa laga dhaxlaa cadaabta ilaahay allaha naga badbaadiyo waa meel aan lagaa soo saarayn haddii aad xaaraamta bannaysato oo adigoo gaala aad ku dhimato waa meel aan weligaa dambe lagaa soo saarayn ilaahay ha naga samata baxsho suuraddaani marka sidaas bay ka hadashaa xasanu bisri waxaa la yidhi hadda ka hor taabiciintii nin ka mid ahaa la yidhi ayaa waxaa lagu yidhi nin baa ku xanta baa la yidhi ninkaasaa ku xanta markaasuu uu timir soo qaaday baa la yidhi wuu soo baxay ninkiibuu u keenay timir isagoo wada markaasuu yidhi timirtaan waa maxay buu yidhi waxaa i soo gaari buu yidhi inaad ii shaqaysood ajir iyo wanaag ii samaydo marka anuguna xoogaa yar oo amaalguda aan kuu soo qaaday buu yidhi maadaama aniga aad ajir ii shaqaydo oo aad i xamato anna waa inaan kuu amaal gudaa ilaa ajir baad ii shaqayday dadkii hore sidaas bay ahaayeen raadi bay ku ahaayeen markii la xanto oo wax laga sheego way ku farxi jireen nin kale oo ka mid a taabiciintiina waxaa loo soo sheegay qof baa ku xantaa la yidhi maya qof baa wuxuu ku yidhi waad i xamataa markaasuu yidhi qof haddii aan xamanayo hooyada iyo aabbahay baan xaman lahay ayaga inaan xantaan macnaha ku habboon maxaa yeelay hooyaday aabbahay haddaan xanto ajirkaygaa la siinayaa marka qofka haddii ajirkayga qof la siinaayo waalidkayga inaan u shaqeeyaa ii roon buu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim waylun halaag iyo cadaab ama waadi naarta ku sugani wuxuu u sugnaaday likulli humazatin mid xan badan kulligii humaskaasoo lumazatin ceebayn badan dadka waa xantaa waana ceebeeya nasabkooda wax ka sheega ayagoo ka maqan buu isha ku ceebeeya ayagoo la jooga ninkaasi ku soo degootay aan sheegaynay laakiin xukunku waa caam waylun halaag ama waadiga jahannama ku yaalla likulli humazatin ruuxa ceebe ee xanta badan ayuu u sugnaaday lumazatin ee ceebaynta badanoo dadka muslimiintaa ceebaynaaya isha iyo xaajibka iyo wax walba ku ceebaynaya alladii kaasoo jamaca kulmiyey maalan xoolihii buu kulminayaa adduunya u ururiyaa wa caddadahu tirtiriyey waa kulminaa markaasuu xisaabinayaa dadka waxaa la sheegay adduunyada ay haddee maskaxdooda aad ugu weynaatay ma hurdaan ma harsadaan raaxo inay ku jiraan bay u moodaan qofka kaa adduunyada badan raaxo kuma jiro so u xisaabi lahay meeshuu ka baxday meeshii laga keenay meeshuu geylahay
macnaha adduunka intuu joogana waaba dhiban yahay wuu cadaaban yahay aakhirana waa ku cadaaban yahay ilaahayna badbaadiyo yaxsabu wuxuu u moodayaa anna maaluhu xoolihiisu akhladahu inay waarinayaan oo maalkiisu uu celin karo adduunyada ayuu u moodayaa kallaa reebtoon ka joogso arrintaas layumbadanna la tuuree oo la tuuree oo la tuuree ama la ridee oo la ridee oo la ridee fil xudamati naarta xudama la yidhaah ilaahayaa naga badbaadiye ayaa lagu tuurayaa wax walba oo naartaas lagu rida baa la yidhi waa burburisaa burburiso aa loo yaqaanaaba wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey mal xudama xudama waxay tahay mal xudamatu naarullaahi ilaahay naartiisii weeyi naartaasu almuuqadatu ee la huriyey allatii naartaasoo taddalicu gaadhaysa saaqaysa u soo fananaysa u soo tallaabsanaysa u soo gudbaysa ku soo faalalaysa cala alaf'idati qalbiyaalka dushooda innahaa naarta calayhim gaalada dushooda mu'sadatun ayaaba lagu daboolayba fii camadin tiirar dhexdeed ayay ahaadeen gaaladu tiirarkaasoo mumaddadatin la taagay weeye la fidiyey tiirar fidsan ay ku sii dhex jiraan mumaddadatin la fidiyey bismi illaahi araxmaani araxiim waylun halaag iyo masiibo iyo khasaaro iyo waadi jahannama ku yaallaahi wuxuu u sugnaaday likulli humazatin mid kasta oo xan badan oo muslimiinta xamanhaya oo xanta muslimiinta bannaysta halaag iyo waadi jahannama u leeyahay midkaasoo humaskaahoo lumasatin ceebayn badanoo muslimiintii ceebaynaya indhaha xaajibka ishow dadka ku caayaa xataa alladii kaasoo jamaca kulmiyey maalan xoolihii buu kulmiyey wa caddadahu markaasuu tirtiriyo maalkiibuu kulminhayaa wou tirinhayaa wou ilaalinayaa wuxuu isleeyahay yay kaa dhammaanin wuxuu yidhi imaamu dabari axsaa caddadahu walam yunfiqhu fii sabiili illah jidka ilaahay kuma bixinaayo xaqii lagu leeyay kama bixinaayo xisaab bisuu ku jiraa yaxsabu wuxuu u moodayaa anna maalahu xoolihiisu akhladahu inay waarinhayaan inay adduunyadaanu waarinayso oo maalkan uusan ka dhima doonin oo adduunka uu iska joogi doonuu u moodaa kallaa ka joogso ficilka nuucaaseh inay arrintu sidaa noqoto iska dhaafe gaalkaa danniga ha ka reebtoomo layumbadanna la tuuree oo la tuuree fil xudama naarta xudama la yidhaahdo oo shay walboo lagu tuuro burburinaysa oo cunaysa ayuu gelayaa naaruhu waa badan yihiin mid xudamaa la yidhaah mid jahannamaa la yidhaahdaa mid saciiraa la yidhaahdaa mid saqaraa la yidhaahdaa mid haawiyaa la yidhaahdaa midna ladaa la yidhahda waa toddobadaas naarood ay ilaahay ha naga badbaadiyo layumbadanna lagu ridee oo lagu ridee oo lagu ridee fil xudama naarta xudama la yidhaahdaa lagu tuurayaa gaalka nuuca ah wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nabiyullaahi moxamedow mal xudama xudama waxay tahay naarta xudama la yidhaahdo maxaa ku ogeysiiyey xaqiiqadeeda naartaas maxaa ku ogeysiiyey oo shay walboo lagu tuuro burburinaysa oo hilibka cunaysa oo qalbiga waxa weeye soo gaaraysa ilaahay hadduu tilmaamahaya naarullaahi ilaahay naartiisii weeye naartaasoo almuuqadatu ee la huriyey waa naar ilaahay waa la huriyey amarka ilaah iyo iraadada ilaahay baa lagu huriyey naarta adduunyada la mid maahan dabka adduunyadu wow damaa ayadu weligeed dami mayso waa naarta ilaahayuu la huriyey waa naarta ilaahay waxaa la yidhi 1,000 sano uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa la hurinhaya buu yidhi uuqida cala annaari 1000 sana xataa axmarat ilaa guduud ay ka noqoto uma uuqida calayha 1000 sanatin xata byadat haddana 1,000 sanaa la shidaayey ilaa ay ka caddaato uma uuqida calayha 1000 sana xata swadad
haddana 1000 sana la shiday ilaa ay ka madoobaato fahiya sawdaa'u mudlima hadda waa madow waana mugdi oo yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sida oo warinayo imaamu tirmidhi abi hurayra laga wariya waana mawquuf baa la yiri xadiiskaasi marfuuc ma aha marka naartu qofka marka la geliyo laa yamuutu fiiha walaa yaxya qofka marka la geliyo mana noola mana dhiman baa la yidhi tadcuu man adbara wa tawallaa qofka ka carara oo ka duburjeedii raacdaysanee baa la yidhi idaa ra'adhum min makaanin baciidin samicuu lahaa taqayudan wa safiiran markaad meel dheer markay ka arkaan ahlu naarku ay maqlayaan qaylada iyo sarriska naarta ka yeerayaa la yidhi oo ay u soo ordayso dadka waxa weeye dambaaba ilaahay ha naga badbaadiyo cadaabta ilaahay aad bay u weyntahay dadka nuucaana oo xanta iyo ceebaynta badan oo muslimiinta carabkooda ka ilaalin waayey oo xaaraamta iska dhaafin waayey oo salaadda ilaahay la iman waayey oo waajibaadka ilaahay inkireen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xurmadiisa iyo sharaftiisa meel uga dhaceen oo guriga dhisan duminayaan oo dadka namiimo iyo dulmi la daba joogaan oo abtiriska dadka nabadgeli waayaan ayayna waxa weeye suuraddaani ka hadashaa oo cadaabtaani u sugnaatay ilaahay naga badbaadiyo naarullaahi ilaahay naartiisii weeye naartaasoo almuuqadatu ee la huriyey allatii naartaasoo tadalicu gaaraysa buu ilaahay yidhi u soo kor noqonaysa way soo tegee baa la yidhi holaceedu markaasuu qalbiga qofka uu soo gaaraa tay kor u soo faalasho ay qofka dhan cunee baa la yidhi ay qofka dhan cunaysaa weeye dadka ku jiraa qofka ku jiraa ma dhiman mana noola tadalicu saaqaysa ama u soo kor noqonaysa oo ku soo faalalaysa cala alaf'idati qalbiyaalka innahaa naartii mu'sadatun waa mid la daboolay calayhim gaaladii korkoodii baa lagu daboolay inta lagu daboolo baa lagu xirayaa marka wax dabaylaho u soo gelaya ma leh fii camadin tiirar dhexdood xaal ay ahaadeen tiirarkaasoo mumadadatin la taagay tiirar fidsan ayaa marka hore waxaa la yidhi inta silsilado iyo birar qoofaalla lagu xidho oo gacmaha iyo lugahooda laysku jeebeeyo ayaa naarta lagu xidhaa baa la yidhi tiirar baa la dhex geliyaa naarta ku dhex yaalla waa lagu musbaaraa kor baa naar looga sii daboolaa meel dabaylu ka soo gasha ma jidha baa la yidhi ilaahay ha naga badbaadiyo markaasi waxay ka quusanayaan qad ya'isuu min alkhuruuj biidbaaqi alabwaabi calayhim wax albaaba maadaama meeshii aysan lahayn way og yihiin weligood inaysan ka soo bixi doonin way ka quusanayaan waxaa loo odhan doonaa qaala akhsa'uu fiiha walaa tukallimuun aamusa ha hadlinina oo ilaahay uu leeyahay hayla warraminina ugu leeyahay dheeraada ikhsa'uu fiiha ilaahay ha naga badbaadiyo cadaabta ilaahay naga badbaadiyo 7,000 oo hoggaan ay jahannama leedahay xarig walbana 7,000 oo malag baa ku xidhan waa 70 naarood jahannama ugu korrayda kuwa kale waa ka sii hooseeyaan way ka sii kulayl badan yihiin cadaabta ilaahay rabbi ha naga badbaadiyo wax u quwaytami karaa ma jiraan bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu alcasri makiya wa aayaatuhaa 3 suuraddan waxaa la yidhaahdaa suuratu alcasri baa la yidhaahdaa waana maki aayadaheeduna waa 3 aayadood walcasri suuradda loo yaqaano weeyaan casirku waa zamanka oo cumriga waxa weeye insaanku uu ku dhammaado ama waa salaada casir ama waa zamanka naftiisaba oo dadku dhex joogaan waana suuraddaani suurad cajiiba weeye waa suuradda imaamuna shaafici ou yidhi low lam yanzil illaahu siwaa haadihi suura lakafat innaasa buu yidhi haddaan ilaahay suuraddan maahane wax kaleba soo dejin lahayn ayadaa dadka cilmi iyo camal iyo wacdi iyo waano ugu filan suuratulcasriya cilmi oo dhanba ku dhammaaday waxay asxaabta nabigu ahaayeen markay wada kulmaan oo ay kala tegayaan mid walbaa midka kale ayuu ku dul akhri jiray suuraddan waa suurad ka hadlaysa 4 tilmaamood haddii aan qofka laga helin wuxuu ku jiraa qolooyinka khasaaray ku odhanaysa 4taa tilmaamood midda ugu horrayda waa inuu qofku iimaan leeyahay oo uu rasuulka rumaysan yahay calayhi salaatu wasalaam oo diinta rumaysan yahay oo ilaahay si dhaba oo caqiida suubana ku rumeeyo
oo islaamka ictiqaad suuban ou ka qabo oo sifaadka ilaahay ictiqaad suuban ou ka qabo ilaahay qalbigeenna iyo iimaankeenna iyo caqiidadeenna ha suubiyo caqiidadu waxay ka dhigan tahay iyo aaminkaaga ee qalbigaagu inuu yeesho aas fiican maxaa yeele qalbigu hadduu tooso inta kale waa toosayaan qalbigu hadduu qalloocdo waa guri aasaaskii ou qalloocday dhoobada ugu horrayda iyo dhagaxa ugu horreeya haddii uu ka qalloocdo gurigu dhismadu ma toosayso qur-aanka haddii marka hore oo laguu bilaabo alifka haddii marka hore oo laguu bilaabo qur-aanka carabkaaga qalad lagugu baro ama marka hore si xun qalada lagugu baro weligaa laguma toosin karo aayaddii waxaa la yidhi xarafkii alif ka toosa ka qalloocdaahi albaqre kama tooso marka ilaahay hana toosiyo shay kastaa waxay leeyihiin meel laga soo bilaabo bidaayow leeyahay haddii bidaayadu ay hallowdo nihaayada lama gaari karo marka suuraddan 4 tilmaamood oo qofka haddii laga helo oo guulaystay midda ugu horrayda waa iimaan midda labaad waa camal suuban midda saddexaad waa xaq oo laysfaro midda afaraadna waa sabarkoo laysku dardaarmo 4taa tilmaamood qofkii laga hela maahane inta kale ilaahay wuxuu leeyahay halaag iyo khasaaro ayay u dambay doonaan waana tanaa suuraddii marka bismillaahi araxmaani araxiim waalcasri zebankan ku dhaartay innal insaana insaanku buu yidhi ilaahay la fii khusrin khasaaro dhexdeed buu ahaaday ila aladiina kuwii ma ahane aamanuu ilaahay iyo rasuulka rumeeyeen wa camiluu camal faleen assaalixaati acmaasha suusuuban wa tawaasow isku dardaarmeen bilxaqi xaqa iyo wanaagga wa tawaasow isku dardaarmeen bisabri sabarka isku dardaarmeen ma ahani bismillaahi araxmaani araxiim waalcasri zebankan ku dhaartaye innal insaana insaanka jinsigiisoo dhammi la fii khusrin khasaaro dhexdeed buu ahaaday khasaarow ku jira insaanku oo khasaarow ku sugan yahay ila aladiina kuwii ma ahane aamanuu ilaahay iyo rasuulka rumeeyeen wa camiluu camal faleen ilaahay iyo rasuulka rumeeyeen wa camiluu camal faleen assaalixaati acmaasha suusuuban wa tawaasow iskuna dardaarmeen bilxaqi xaqa iyo wanaagga isku dardaarmeen ma ahane wa tawaasow isku dardaarmeen bisabri sabarka iyo ilaahay baqiddiisa kuwa isku dardaarmay oo sabarka iyo khayrka isfara oo ilaahay ka cabsada kuwaas maahane inta kale insaanka khasaaro iyo jab iyo halaag bay ku sugan yihiin ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waalcasri baan ku dhaartu ilaahay yidhi zebanka hadda ilaahay wuxuu doono ku dhaaran karaa wuxuu ku dhaaran karaa zebanka wax kastoo u baahdo ilaahay ku dhaaran karaa waalcasri zemankii baan ku dhaartay ilaahay wuxuu yidhi innal insaana insaanku la fii khusrin khasaaro dhexdeed buu ahaaday insaankii khasaaro ku jirayaa ila aladiina kuwii ma ahane aamanuu ilaahay iyo rasuul rumeeyeen wa camiluu camal faleen assaalixaat iimaanku wuxuu u baahan yahay camal saalixa in la helo maxaa yeelay qofku hadduusan camal wanaagsan la imaanin iimaankiisii midhihiisii ma gaarahayo wa tawaasow haddana isku dardaarmeen bilxaqi xaqa isku dardaarmeen wanaagga in la sameeyo ilaahay in la rumeeyo runta in la sheego ilaahay in la caabudo salaaddii in la tukado soonkii in la soomo sekadii la bixiyo xaqoo laysku dardaarmo sidaas weeye macnihiisu wa tawaasow haddana isku dardaarmeen bisabri sabarka markii masaa'ibtii qofku la kulmo inuu ku sabro isku dardaarmo daacadii inuu dulqaad iyo sabar ku barto xaaraamtii naftiiyo shayddaanka inuu la dagaalamo oo ka sabro masaa'ibtii inuu ku sabraa loo baahan yahay sabarka sidaas baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi imaamulbayhaqi kitaabkiisa la yidhaha fi shicab wuxuu ku soo wariyey can abi xudayfa wa kaanad lahu suxba qaala wuxuu yidhi kaana arajulaani min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam labada qofood oo saxaabtii nabiga ka mid ah idaltaqayaa markii ay kulmaan lam yatafaraqaa xataa yaqra'a axaduhumaa cala alaakhar suurata waalcasri buu yidhi laba saxaabi markay wada kulmaan kalama tegi jirin ilaa midkood midka kale suuraddan ku dul akhriyo
ثم يسلم أحدهما على الآخر markaas ayuu midkii tagayaahu kan kale salaami jiray ilaa salaamta markii la isku yimaado waa la is salaama markaad baxaysana assalaamu calaykum baa la yiraahdaa midda hore midda dambe kama xaq badna marka salaamtu sidaas weeye suuradaana wanaagaas bay amraysaa casharkeena caawa intaas ayaan ku soo koobaynaa wallahu a'lam bis-sawaab wallahu waliyyu tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh a'lam bis-sawaab wallahu waliyyu tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh warahmatullaahi wabarakaatuh warahmatullaahi wabarakaatuh warahmatullaahi wabarakaatuh ورحمة الله وبركاته